haddaad ka raadisay internetka cidda uu yahay shiishahankii ugu halista badnaa ee adduunka soo maray waxaad helaysaa in masaadirta inta ugu badan ay sheegayaan in shiishahankii ugu halista badnaa uu yahay nin lagu magacaabo Simo Häyhä halka masaadirta qaarkood oo aan badnayn ay tilmaamayaan inuu yahay shiishahankii Baghdad. haddaba muuqaalkeenan waxaan isku barbardhigi doonaa labadan shiishahan ee kala ah Simo Häyhä iyo shiishahanka Baghdad oo dad badan aanay garanayn qofka uu yahay cid badan aanay ka warramin sheekadiisa. waxaanaan isla go'aamin doonaa midka mutaysta inuu noqdo shiishahanka ugu wanaagsan uguna halista badan ee soo maray adduunka. haddaan ku bilowno shiishahanka lagu magacaabo Simo Häyhä waxaa loo aqoonsaday ninkan inuu yahay shiishahankii ugu wanaagsanaa ee adduunka soo maray sanadkii 1939 markii Ruushku uu soo weeraray dalkiisa Finland. Simo waqtigaas wuxuu ka tirsanaa ciidamada Finland wuxuuna awooday ninkan inuu cabsi ku beero dhammaan ciidankii Ruushka. markii koobaad ee Ruushku uu soo weeraray waddankiisana Simo wuxuu qaatay qorigiisii wuxuuna u dhaqaajiyay xuduudka u dhaxeeya waddankiisa iyo Ruushka wuxuuna bilaabay inuu halkaas ka ugaarsado ciidamadii Ruushka mid Ruushkuna waa awoodi waayay inuu ninkan wax ka qabto ama uu iska caabiyo wuxuuna ka laayay ciidankii Ruushka tiro aad u badan. intaa kadib Ruushku waxay u soo direen shiishahankii ugu wanaagsanaa ee agtooda joogay laakiin shiishahankaasi uu soo baxay kumanuu soo laaban waddankiisii. kadib waxay u soo direen koox shiishahana oo ahayd kuwii ugu wanaagsanaa uu lahaa ciidanka Ruushku laakiin sidoo kale way soo baxeen kooxdii dibna umay soo laaban. waxay ahaayeen ciidamadii Ruushku qaar beegsada meesha ay uga shaksan yihiin inuu ku sugan yahay ninkani kadibna waxay ku qaraaci jireen madaafiic iyo rasaas laakiin taasi wax faa'iido umay keenayn sababtoo amabuu ku sugnayn meeshaas Simo. wuxuuna sidaa ku socday Simo ilaa uu ka dilay tiro gaadhaysa 700 oo ciidankii Ruushka ahayd waxayna ku magacaabeen ninka magaca mawdka ama geeridii caddayd sababtoo Simo wuxuu ahaa mid xidho maryo cadcad oo ku dhex dhuunta barafka taasoo mustaxiil ka dhigaysa inay cid aragto meesha uu ku sugan yahay. waxa kaliya awoodeen ciidankii Ruushku inay yeelaan ninkanna wuxuu ahaa inay kaga dhufteen hal rasaas wejiga sida sawirka idinka muuqata. rasaasta darteedna wuxuu galay Simo kooma muddo bil ahayd isagoo markii uu soo toosayna uu soo toosay waddankiisii oo la galay heshiis nabadda dalka Ruushka. waxaana la sheegaa in Ruushku uu dalbaday heshiiska nabadda cabsi uu ka cabsanayo ninkan dartii. sheekadiisu waa mid aad u cajiiba soo maaha. haddaba iminkana aan isla ogaano sheekada labaad sheekada shiishahankii Baghdad. shiishahanka Baghdad ama Juba sida uu kaga dhaxaan noqday cadowgiisii Maraykanka wuxuu soo muuqday ninkani sanadkii 2003 kadib markii Maraykanku ay ku soo duuleen Ciraaq oo ay rideen nidaamkii Saddam dhammaantii. waqtigaas Juba wuxuu ka mid ahaa ciidankii Ciraaq. markii xukuumaddii waddankiisu ay dhacday Maraykankuna ay qabsadeen waddankiisana wuxuu ku fikiray Juba wixii uu samayn lahaa ee uu ka yeeli lahaa ciidankan ku soo duulay waddankiisa. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso muxuu ka tarayaa shakhsi sita hal qori ciidanka intaas leeg ee tiradooda iyo cududooduba ay weyn tahay. dhab ahaantii wuu ka taray wax badan sababtoo markay lugta sidaa u soo dhigeen Maraykanku dhulkii Ciraaq Juba wuxuu qaatay hubkiisii wuxuuna bilaabay inuu mid u laayo ciidamadii Maraykanka ilaa ay gaadheen Maraykanku inay ku sifeeyeen Juba inuu yahay cadowgooda koobaad ee jooga Ciraaq. iyaga ayaana u bixiyey magacan Juba. kelmaddan Jubana waxaa lagu macneeyaa macnayaal kala duwan laakiin dhammaantood waxay ka hadlayaan dhimasho iyo geeri waxaana ka mid ah macnayaashaas dhimashadii aan la arkayn ee shabaxa ahayd. Jubana wuxuu ku noqday laf dhuun gashay ciidankii Maraykanka muddo 3 sannadood oo xidhiidh ahayd. Maraykankuna waxay u soo direen markii ay ka nasan waayeen guuto dhan si ay ugu dhigaan dabin oo uu dabinkaas ugu dhaco Juba laakiin guutadii iyada ayaa ku dhacday dabinkii wuxuuna awooday Juba inuu laayo dhammaantood. marka ay ka quusteen inay ku dilaan shiishahankan hub waxay sidhaahdeen u adeegsada lacag waxayna ku dhajiyeen wadooyinkii Ciraaq oo dhan waraaqo ay ku qoran yihiin in ciddii soo sheegtay cidda uu yahay ninkan ama wuxuun xogo oo ku saabsan inay siin doonaan abaalmarin gaadhaysa $40,000. laakiin maalintii ku xigtay Juba wuxuu ugu soo jawaabay isla qaabkii ay iyagu sameeyeen oo kale wuxuuna ugu soo qoray waraaqo aniga ayaa siinaya $100,000 ninkii ka mid ah ciidanka Maraykanka ee madaxiisa kor u qaada madaxaaga un adigu kor u qaad haddii aad noolaato waxaan ku siinayaa $100,000.
wuxuuna ku sugnaa xaalkaas Juba 3 sano isagoo ku noqday waxay ka seexan waayeen ciidankii Mareykanka oo dhani laga soo bilaabo sanadkii 2003 ilaa 2006 waxayna ahaayeen muddadaas qaaraan xitaa aqoon ciidan ay la dagaalamayaan cidda ay tahay kaliyana waxa uu yaqaanay magaca ay ula baxeen oo ahaa Juba wuxuuna ahaa Juba mid markasta uu dilo nin ciidanka Mareykanka ka mid ah uga taga meeshaas uu ku dilay fariin ay ku qoran tahay shiishaankii Baghdad ayaa maray halkan sidaas ayna ku ogaanayeen in ciidan waxa samaysay uu yahay Juba laakiin uu yahay halkaayuuna ku sugan yahay taas ay awoodi waayeen inay ogaadaan oo ay gaadhaan 3 sano uu la dagaalamay Mareykankana waxa lagu sheegay inuu laayay 600 oo ciidamadii Mareykanka laakiin kadib sanadkii 2006 uu qarsoomay Juba waxaana jira aragtiyo kala duwan oo laga sheegay meesha uu ku qarsoomay Juba iyo halka uu ku dambeeyay macluum waxay sheegaysaa in Juba la dilay mid kalena waxay leedahay ilaa hadda waa mid nool oo aanay cidna ogaan shakhsiyadiisa iyo cidda uu yahay macluumo kalena waxay sheegaysaa in ciidamada Mareykanku ay xidheen iyagoo aan garanayn inuu yahay Juba halkaasna ay ku jirdileen ilaa uu ka dhintay si kastaba ahaatee waxa kaliya la og yahay waa in Juba uu qarsoomay sanadkii 2006 meel uu aadayna lama hubo halkaasna waxay ku dhammaynay sheekadii labaad ee shiishaankii Baghdad xukunkuna waa dhankaaga ka mudan in la siiyo taytalka shiishaankii ugu wanaagsanaa adduunka laakiin ka hor intaanad xukumin waxaan kula wadaagi doonaa arrimo yaryar oo ku saabsan labadan shiishahan waqtiga uu soo muuqday uu dagaalamayay shiishaanka hore ee Simo wali wadankiisu uu taagnaa oo lagama adkaan laakiin Juba wuxuu soo baxay wadankiisii oo dhacay Mareykankuna ay xoog ku qabsadeen oo ay haystaan arrinka labaad wuxuu yahay Simo wuxuu ku jiray duruuf dabiici ah oo ahayd barafka taasoo ka caawinaysa inuu weeraro u gaarsado cadowgiisii iyadoon la arag wuxuu dhex joogay baraf tiro badan wuxuuna xidhnaa maryo cadcad laakiin Juba wuxuu ku dhex sugnaa meel aanay waxba qarinayn iyo arrinta ugu dambaysa oo ah Simo wuxuu soo baxay sanadkii 1939 macnaha may jirin waqtigaas qalabka horumarsan ee lagu ogaado meesha uu ku sugan yahay qofku laakiin Juba wuxuu soo baxay sanadkii 2003 waqtigii uu ahaa Mareykanku ciidanka ugu wanaagsan uguna awoodda badan adduunka agtoodana uu yaalay qalabka ugu casrisan ee lagu ogaado locationka uu qofku ku sugan yahay dhammaan waxaas ay haysteen oo la isku darayna may awoodin inay ogaadaan xitaa magaciisa oo kaliya haddaba kayaad malaynaysaa inuu yahay midka mutaystay laqabkaas shiishaankii ugu wanaagsanaa ee soo maray adduunka intaasi una ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta hayloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto subscribe-na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub waad mahadsan tahay